السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته waxay ii farxada inaan kugu helin doono safarkan qiimaha badan aynu ku baranayno koorasan graphic design-ka gaar ahaan Photoshop-ka waxaan rajaynayaa sahaydaada iyo taydaba inaad noo soo wada qaadi doonto si safarkan quruxda badan aynu u wada galno waxaynu ka bilaabi doonaa barbilow aad u qiimo badan oo aasaas ah ilaa heer sare aynu isla gaadhno waxaan rajaynayaa sahayda oo ay ugu qiimo badan tahay niyadaada inaad wanaajiso oo khayr geliso cilmi inaad baranayso aad ku soo xaadiriso inaanad soo ilaabin sahaydu way fara badan tahay taas ayaa marka hore aad kaagala dardaarmaya waana midda aan xooga saarayo oon ku tiiqtiiqsanayo si aad ila fahanto muhiimadda ay leedahay niyadda waayo alla weyne subxaanahu wa tacaala niyadda shardi ugama dhigeen salaad kasta soon kasta iyo cibaadooyinka badankooda oo kuma dhaheen ilaahay subxaanahu wa tacaala niyadda geli salaadan aad tukanaysaa nooca ay tahay ma duhur baa ma casar baa ma mid suno ah baa ma mid maxaan ku rahday waajib ah baa afar rakacadood baa ma laba ma saddex baa ma lagu tukanayaa mise adaa wax tukanaya intaas ilaahay kuma dhaheen niyadda geli haddaba si niyadda aan u wanaajino waxaynu u baahannahay in qalbiga aynu ka dhaadhicno in maadadan ay sahlan tahay fududahay qiimana leedahay diintaada aad ku difaaci karto dadnimadaada aad ku difaaci karto waynu arki doonaa waxa graphic design loo yaqaano waxaan hadda aan kuu sheegayn insha Allah tacaala markaas ayaad ila fahmi doontaa haddaba hadduu ilaahay insha Allah tacaala koorsadan waxaynu ku qaadan doonaa cutubyo dhowr ah oo aanu ku baran doonaa cutubka koowaad ama module 1 ka waxaynu ku baran doonaa hordhac aynu ku qaadanno Photoshop-ka intaynaan gelin horta si guud maxaa horta graphic design la dhahaa iyo wixii la mid ah iyo wixii soo hoos galaya waxaanu noqon doonaa insha Allah tacaala casharka ugu horeeya ee koorsadaas maaragtay cutubkeeda koowaad aynu ku qaadan doonaa waa maxay graphic design waxaa ku xigi doona casharka labaad noqon doona hordhiciinaasi hoos kaga sii jira maaragtaa aragti guud aynu ka qaadan doono xeerarka iyo nidaamka uu leeyahay graphic design-ka principle wax loo yaqaan noocyada casharka saddexaad ayuu noqon doonaa graphic design-ka u qaybsamo si hadhow markaad adiga Photoshop baratid maaragtaa ay wax kaaga bilaabmaan oo si fiican xooga wax u fahantid qaybaha kale adigu ka doontid aad sii qaadan kartid ama xooga u saari kartid ama takhasus aad uga dhigan kartid sidoo kale waxaynu afraad ka dhigi doonaa casharka maaragtaa afraad noqon doona cutubkeena soo hoos galaya maxaa ay yihiin tuulasha ama qalabyada kala duwan ee uu isticmaali karo ma Photoshop oo kaliya mise waa ay ka badan yihiin taas sidoo kale sidee hadaba Photoshop loogu soo degaa si bilaash ah aynu casharkeena shanaad ka dhigi doonaa ka ugu dambeeyna waxa weeye sida loogu shubto marka la soo degto waxa insha Allah tacaala intaas noogu ekaan doona cutubkeena koobaad cutubka labaad isagana waa mid aad u qiimo badan waxaynu ku qaadan doonaa Photoshop-ka iyo gudagelidiisa in isaga gudaha u galno cashar koobaad wuxuu noqon doonaa wajahada sharaxaadeeda iyo sidoo kale muraayada soo dhaweynta muraayada hore ama maarta qaybta hore soo dhaweynta iyo wajahada in aynu kala barano oo aynu maarta waxa meesha ku yaala kala fahano sidoo kale waxaynu kala saari doonaa menu bar maxaa loo yaqaanaa option bar maxaa loo yaqaanaa iyo status bar maxaa loo yaqaanaa casharkeena saddexaad wuxuu noqon doonaa sidee file cusub loo sameystaa fileka sidee loo ilaashadaa oo loo xifdiyaa ama loo save gareeyaa iyo sidee hadhow haddaad u baahato mar labaad u soo kacsan karta u soo furan kartaa casharkeena afraad marka wuxuu noqon doonaa toolbarka inaynu sharaxno toolbarka oo dhan marka ma wada sharaxi doono qaybaha qaar casharadaynu ku arki doonaa ama qaybta designada markaynu sameynayno aynu ku arki doonaa xooga waxaanu saari doonaa oo casharkaas aynu ku qaadan doonaa move toolka iyo selection toolka iyo crop toolka casharka kaas xiga kaas unbuu maarta si daba socdaa oo waa sharaxaada toolasha ama agabka ku dhex jira Photoshop-ka oo type toolkan ugu muhiimsan yahay oo qaybta qoraalka ah eyedropper oo isagana aynu arki doonaa qaab ituso taabsi ah oo ah maarta in midabada aad ku soo qaadan karto ama aad ku soo daaran karto kolba saad u fahmaysid iyo rectangle tool oo isagana insha Allah tacaala noqon doona waxyaabaha aynu aad u adeegsan doono markaynu designada insha Allah tacaala isticmaalino ama aynu sameeyno sidoo kale cutubkeena saddexaad wuxuu noqon doonaa xeerarkii aynu soo aragnay iyo toolashii aynu soo isticmaalno oo soo fahanay qaabka loo isticmaalo inaynu ku dabaqno projectiyada iyo waxyaabaha design aynu sameeyno marka design ugu horeeyay aynu sameeyno wuxuu noqon doonaa Facebook cover iyo sidoo kale maxaan ku dhahdaa Facebook banner sida loo sameeyo coverka yar ama wajahada yar ee profile-ka loo yaqaano sida loo sameystaa iyo wajahada dambe dheer ee xagga dambe ee profile-ka ay ku taal sida loo design gareeyo ama loo naqshadeeyo poster isagana sida loo naqshadeeyo posteradaas marka waxay isugu jiri doonaan tusaale social media furatay waxaa rabtaa inay graphic design inaad tahay aad soo muujiso poster waxaa loo baahan dadka aad ku soo dhaweyso tiraado haye kaalaya graphic designer baan ahay iyo sidoo kale mid jumco mubaarak ah iyo sidoo kale mid dadka kugu xiran aad dhihi karto ka warma su'aashaas
hadad wax ku weydiin karto iyo mid cidii ka jawaabta abaalmarin aad ku guddoonsiin karto oo dhihi karto guuleystaha toddobaadkan ama guuleystaha su'aashii hore waa qofkaas poster noocaasan isagana sidee u sameyn karnaa iyo sidoo kale tusaale graphic designer aad tahay adeegyada aad bixiso poster aad ku sameynaysa ama sawir aad ku soo bandhigaysa sidee isagana loo naqshadayaa billboard oo ah isagana board ama board sidee isagana loo naqshadayaa stamp oo ah shaambad ama timbare isagana sidee loo naqshadayaa tire design shayga ama cagta ama maarta lugta baabuurka isagana sidee loo naqshadayaa kulay waa aragteen barmareynaya xagga dambe ee gaariga mid ku dhigsan naqshadaha ku yaala iyo maarta waxyaabaha design garaysan sida iyadan loo sameeyo casharkaas shanaadna ku qaadan doonaa cutubkeena saddexaad wali cutubkeena saddexaad aynu ku jirnay business iyo ID card aynu ku qaadan doonaa iyo sidii loo sameeyay roll up banner baynu ku qaadan doonaa car branding aynu ku qaadan doonaa oo in gaari aynu naqshadeeno voucher design aynu ku qaadan doonaa warqadan qofka markuu lacagta bixiyo loo jaro logo design aynu ku qaadan doonaa iyadana waxaan ka soo qaadan doonaa laba qaybood text logo qoraal ah iyo sidoo kale logo shape ah certificate design aynu ku qaadan doonaa shahaado sidoo kale waxaanu ku qaadan doonaa cutubkeenaas casharkiisa 12aad t-shirt design iyo desk flag design funaanadaha ama garamada la xirto maarta qaarkood calamada ay ku sawiran yihiin qaarkood qoraal dhiirigelin ay ku sawiran yihiin sida loo naqshadeeyaa iyo calamada yar yar ee xafiisyada badanka calamada dalka la ag dhigo isagana sida loo naqshadeeyo inta waxay noogu soo idlaaday marka cutubkeenii saddexaad cutubka afraad isagana waxa uu ma aragtaa ka waramaya sahantag iyo isticmaalida agabka naqshadaynta isagana insha Allah tacaala waxaanu ku baran doonaa sidee fonts loo helaa maarta sidee sidoo kale images loo helaa oo website-yada ugu wanaagsan waa kuwee laga heli karo shape iyo sidoo kale icons sidee hadaba maarta loola soo degaa font looguna shubtaa computerkaaga sidee hadaba loola soo degaa mockups loona adeegsadaa mockup marka mockup iyo wixii waanu sala arki doonaa sidee hadaba template dhammaystiran wax looga badbedeli karaa oo dhowr maarta template aad hal template qurux badan adiga ku gaara aad uga soo saaran kartaa iyo sidoo kale sida loo export gareeyo different formats isagoo PSD ah isagoo PNG ah isagoo PDF iyo isagoo JPEG ama JPG ah marka intaasoo cashar aynu qaadan doonaa hadduu alleedmo inagoo ilaahay la kaashanna sahaydii aan horey kugu sheegay ee dadaalku uu ka mid yahay niyadda ugu weyn tahay fahamku ku xigo iyo sidoo kale inaad waqti bixiso horena waad noogu soo qaadi doontaa intaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu